asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta ku xiran janalka marka la soo dhowaada aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waa 4 bisha 3 ee Maarch sanadka 2025. muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago reer derbi ka soo bood. dowladda waxay ku dhawaaqday ab qofku oo iska diiwaan gelinayo oo isagu iskii oo isku masaafurinayo. arrintaasi ayaan rabaa inaan idinla wadaago. sidoo kalena wiilkii Falastiiniga ahaa oo ciidamada ICE ay xireen oo mudaharaadyada lagu dalbanayo in la soo daayo ay sii kordhayaan. maantana haddana saaka garsoore kale uu dhageystay muxuu ku amray dowladda, iyadoo Ilhaan Cumar iyo xubno oo dimuqraadiyiin oo Koongareeska ku jireen waraaq ay u direen wasaaradda amniga gudaha oo ay leeyihiin ha la soo daayo. dowladduna waxay ku daba jirtaa dhalinyaro kale oo iyaguna mudaharaadyadii soo abaabulay sanadkii hore oo jaamacadaha Mareykanka dhigto. Trump oo shalay xayeysiin bilaash ah u sameeyay aqalka cad ugu sameeyay ninka iska leh Tesla Elon Musk oo horay markii Allah uu ku jiray lacaga fara badan siiyay gaari Teslana Trump shalay uu iibsaday, inkastoo aan loo ogolayn inuu gaari wado. arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya, balse markii Trump markii Allah uu ku jiray iyo markii xilka loo dhaariyaba in uu waday masaafurintii ugu ballaarnayd ayaan ka samaynayaa wadanka Mareykanka. arrimahaasi hadda weli waa uu wadaa. marka waxaa isniintii maamulka Trump uu ku dhawaaqay ab la yiraahdo CBP Home. abkaasi wuxuu yahay qofku waa uu soo dejisanayaa taleefanka ama iPhone hayso ama Android hayso, waa soo degsanaysaa kadibna waxaad buuxinaysaa informationka adiga ayaa isku masaafurinaya. abkaasi markii hore Biden ayaa sanadkii bishii January ee sanadkii 2023 sameeyay. waxa uu ahaa CBP1. dadka ayaa ballan ka qabsanayeen wadamaha Latin America, dadka imaanayay ballan ayay ka qabsanayeen, kadibna si sharciya ayay xuduudaha ku imaanayeen. markaas kadib ayaa loo ogolaanayay in gudaha ay soo galaan. dad gaaraya 900,000 ayaa qaabkaasi broolka abkaas ay kasoo buuxsadeen wadanka kusoo galeen. marka Trump dhinaca kale ayuu u wareejiyay. markii uu xilka la wareegay abkaasi CBP1 gabi ahaanba waa uu xiray. hadda waxa uu bedelay marka CBP Home oo qofku self deport wax la yiraahdo ayuu isku sameynaya, adiga ayaa ismasaafurinaya. marka haddii aad wadanka sharci dar waliba si mutadawacnimo waaye, marka haddii aad diidana anaga ku imaanayno ku masaafurinayna ayay leeyihiin. abkan marka isniintii ayaa lagu dhawaaqay. waxa uu yahay ololaha Trump oo lagu dhiirigelinaya dadka wadanka sharci darada ku jooga in iyagu iskood ay isku masaafuriyaan. marka abkan waxa uu ogolaanaya dadka sida sharci darada wadanka ku jooga in ay ku dhawaaqaan inay doonayaan si mutadawacnimo inay wadanka uga baxaan. waxana uu sidoo kale siinaya fursad ah in aysan caqabadaha aysan wajahin oo dowladda aysan caqabada ka wajihin haddii ay diidaan, sida uu sheegay ninka sii haya ciidamada xuduudda jooga oo la yiraahdo Pete Flores. waxaana sidoo kale abkan CBP1 sidoo kale uu ku boorinaya dadkan sida sharci darada ku jooga wadanka in ay isaga baxaan. abkan CBP1 marka haddii aad diido inaad abkaasi buuxiso oo aad ismasaafuriso, wasiirka amniga gudaha oo Christine Noem waxa ay leedahay waan ku soo helaynaa, waan ku masaafurinaynaa, wadankana mar dambe dib uguma soo laaban karta. laakiin haddii aad ismasaafuriso waxaad fursad u heli doontaa haddii ay kuu suura gasho in wadankan qaab sharciga aad ku timaado, kadibna American Dreamkaada aad ku noolaato. laakiin haddii aad diido anaga ku imaanayna, waan ku qabanayna, waan ku masaafurinayna, wadankana dib mar dambe uguma soo laabanaysid. haddaba abkan marka aad soo dejisato waxyaabaha uu ku siinayo waxaa ka mid ah ilaa dhowr qaybood ayuu ka kooban yahay. marka aad soo dejiso kadib waxa uu ku weydiinayaa who are you, kuma tahay. informationkaada ayaad halkaasi gelinaysaa. marka waliba luqadda aad doonayso inaad ku buuxiso ayaad dooranaysaa. qaybta labaad waxay tahay submit, inaad soo dirto intent to deport, waxaan doonayaa inaan ismasaafuriyo ayaad leedahay. tan saddexaad sawir ayaad iska qaadaysaa. sawirkaada kadib tig ayuu kuu saaraya, wuu diraya, kadibna next step ayuu kuu gudbinayaa. next stepkana sidoo kalena waxa ay iyaduna ay noqonaysaa in aad additional information su'aalo kale inaad ka jawaabto. marka su'aalahaasi waxa ay inta badan ay yihiin qofku waxa lagu weydiinayaa lacag kugu filan ma haysataa oo aad isku masaafurin karto. adiga lacagta iska bixinaya, dowladdu waxba kaama bixinayso. marka dowladdu inay lacag u baaqatay rabto, waa laga yaabaa travel document iyo waxyaabahaas inay kaa saacido, iyo weliba passport aan dhicin oo unexpired ma haysataa ayaa meeshaas lagugu weydiinaya. marka haddii aad passport wadankaada aad haysato waa lagu weydiinaya, lacag kugu filan ma haysataa ayaa lagu weydiinaya oo isku masaafuriso. su'aalahaas ayaa lagu weydiinaya, kadibna yes and no ayaa su'aalo ku jira sidoo kalena aad uga jawaabayso. kadibna submit CBP ayaa leedahay, notification ayuu ku siinaya, wuxuu leeyahay
si buuxda ayaad isku diiwaangelisay. Abkan waa uu ka bedelan yahay kii USCIS-ta oo dadka wadanka sharci darrada ku jooga kuwa aan la soo xirin oo horey processkaasi aan usoo marin oo wadanka oo la yiraahdo Goraways oo darbiga kasoo boodo wadanka ku dhex jiray 30 maalmood gudahood isku diiwaangeliyeen waa kala bedelan yihiin. Abkan CBP Home ayaa la yiraahdaa adiga ayaa marka isku diiwaangelinay waxaan leedahay waxaan doonayaa wadanka inaan si mutadawacnimo uga baxo oo aan ismasaafuriyo. Arrintaas shalay shirka jaraa'id oo afayeenka aqalka cad ee maalin kasta qabato ayaa Caroline Levitt ay uga dhawaaqday waxayna tiri arrintan waxay ka mid tahay siyaasadaha Trump uu doonayo inuu xadka ammaan uga dhigo dadkii marka baroolkooda lagala laabtay dadkii marka revoke lagu sameeyay baroolkooda la revoke gareeyay ayaa la doonayaa in wadanka iskooda isaga masaafuriyaan iyadoo sheegtay sidoo kale dadkii ka imaanayay Colombia iyo Panama kaymaha u dhaxeeya ee Darien Gapka soo marayay bishii la soo dhaafay 99% inay hoos u dhaceen dadka xadka koonfureed imaanaya ee Mexico Mareykanka uu la wadaagana 94% inay hoos u dhaceen. Marka waxay tiri shaqadan waan dhameystireynaa ballanqaadkii Trump oo ahaa in masaafurinta ugu ballaarnay taariikhda uu sameynayna waan ka dhabaynayna. Waatan Caroline Levitt oo shalay shirka jaraa'id abkan CBP Home uga dhawaaqaysay waxay tiri On another very important issue for the president, he continues to work hard to secure the border. If you missed it yesterday, CBP launched an enhanced home mobile app with a new feature, the Intent to Depart, which offers unlawfully present aliens or those aliens whose parole has been revoked an orderly and defined process to notify the U.S. government of their intent to depart the country. The CBP Home app strengthens our mission to secure the border and provides illegal aliens with a straightforward way to leave now before facing much harsher consequences later. A new report from Bloomberg just found that the number of aliens trying to reach our country by traveling through the jungle to Central America dropped a whopping 99% last month. And this follows the incredible news that illegal border crossings plummeted last month as well, down 94% at our southern border from last February under the Biden administration. As President Trump made clear during his historic address to Congress, we must finish this job and continue to carry out the largest deportation campaign in American history. intaas haddii aan kaga gudbo arrintaasi wiilkii Falastiiniga ah oo sabtidii ay ciidamada ICE ay xireen arrintiisu waa ay sii ballaaranaysaa. maanta garsoore ayaa sidoo kale kiiskiisa dhageystay waxaana dowladda lagu amray in ay u ogolaato wiilkaasi Falastiiniga Maxamuud Khaliil in telefoon isaga iyo qareenkiisa ay isku helaan sida ugu dhaqsiyaha badan caawo. qareenkiisu waxay sheegtay waa ii suura gali waysay inaan xiriir la sameeyo aan hore idin sheegay ICE markay dadka qabtaan xabsiyada ay ku xiraan waa waxa ay ka fog yihiin magaalooyinka meelo ka fog ay inta badan oo cidlaha ay ku yaalaan dadkana telefoonna looma ogolaado. marka arrintaasi ayuu ku amray waliba dacwadiisana la dedejiyo dowladuna waa tii hore garsoore ugu amray in aysan masaafurin karin maadaama green card uu leeyahay. haddaba xaaskiisa ayaa marka shalay waxay ka warbixisay qaabkii ninkeeda loo xiray. waxay sheegtay inagoo afur ka soo laabana ayay tiri sabtidii ayaa ciidamo ICE ahayna soo dabagaleen waliba waa ay nala murmeen kadib markii aan guriga imaanay ayay waxa ay isku dayeen inay xiraan anigana waxa lagu amray ayay tiri inaan qaybta sare ee guriga apartmentiga aan aado haddii kalena la ii xirayo wax waraaqa oo warranty ah ma aysan na tusin. markii aan qareenkeennii wacnayna telefonkii ayay ku damiyeen. arrintaasi waxay tiri filan aanan go'aansan inaan daawado ayaa goobtaasi ka dhacay waana ka xumahay waana ka niyad jabsanahay ayay sidoo kale tiri. dowladdu marka waliba waxay ku daba jirtaa dad kale arday kale oo mudaaharadii sanadkii hore lagu taageerayay Falastiiniyiinta soo abaabulay jaamacadda Columbia oo kale aqalka cad ama wasaaradda amniga gudaha waraaqa iyo magacyo ay u direen leeyihiin dadkan ayaan u baahanahay laakiin jaamacaddu waa ay diiday inay la shaqeyso oo dadkaasi magacyadooda ay u ogolaato. sidaas darteed hadda xubnaha ka tirsan Congress-ka oo dimuqraadiyiin Ilhaan Cumar ay ku jirto 14 xubnood ayaa wasaaradda amniga gudaha sidoo kale waraaq u diray oo waxay leeyihiin arrintan xorriyatul qowlka ayay ka soo horjeedaa iyo waliba qofka inuu mudaharaad xitaa siyaasadeed u sameyn karo. sidaas darteed waa in si degdeg ah lagu soo daayo waraaqdan ayay saxiixeen. marka ay mudaharaadadiina waliba ay sii socdaan lagu dalbanayay wiilkan Maxamuud Khaliil in la soo daayo arrintiisu waa ay sii ballaaranaysaa. marka maxkamaduna saaka garsooruhu kiiskiisa ayuu dhageystay waliba qareenadiisu waxay sheegeen in ay dacwad kala xareyn doonaan oo ah si degdeg ah lagu soo daayo maadaama si sharci darro ah wiilkan lagu haysto. ninkii Trump ahaa iyo Elon Musk waxaan ognahay waa saaxiibo isku dhow ay ahaayeen ilaa iyo markii
ololaha doorashada ilaa iyo markii la dhaariyay kadib. Marka waa tii Tesla dadka gawaarida elektroniga ee kambanigan uu iska leeyahay Elon Musk dadkii iibsaday baabuurtii iska celiyeen, meelihii lagu gadayay dhibaatooyin fara badan loo geysanayay. Marka shalay xayisiin bilaash ayaa aqalka cad Trump ugu sameeyay Elon Musk si baabuurtiisa uu kor ugu qaado iibkeeda. Marka shanta nooc oo kambaniga Tesla baabuurta uu soo saaray ayaa aqalka cad la keenay, xitaa Cybertruck ku jiro. Trump marka wuxuu yiri gaarigan iibsanaya. Elon Musk ay wuxuu ku yiraahday midka ugu fiican. Elon Musk wuxuu yiri anigu marka midkan gaarigan gaduudka ayaan isticmaalaa Model S ayaa la yiraahdaa. Marka Trump gudaha ayuu u galay, wuxuu yiri wow waxa dhan waa wada computer. Marka sidaas darteed wuxuu yiri gaarigan ayaa iibsanaya walow madaxweynaha aan loo ogolayn inuu isagu gaari wado oo sharci darro ay tahay. Sidaas darteed arrintaas waxa loo arkay inuu leeyahay ninkii ku gala abaal mar baa loo gudaa. Macnaha ninkan ku dhawaad 300 milyan ayuu siiyay xilliga ololaha doorashada uu ku jiray. Haddana xaaladiis ayaa xun oo baabuurtiisi wax iibsanaya male. Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid, xitaa lacagtiisa 130 bilyan ayuu 3 bilood hoos u dhacay ayaa la leeyahay. Sidaas darteed waxa loo arkay in xayisiin bilaash ay arrintaasi ahayd. Arrintii korontada oo Ontario gudoomiyaheeda uu joojiyayna oo gobolada Michigan iyo New York iyo sidoo kale Minnesota qaybo kamidana markii Trump maamulkiisa iyo waliba ay wada hadleen gudoomiyaha Ontario Doug Ford iyo ninka wasiirka ganacsiga ah ee maamulka Trump oo la yiraahdo Howard Lutnick, arrintii dib ayaa loo dhigay. Wada hadal ayaana la isugu imaan doonaa aqalka cad ay imaanayaan gudoomiyaha Ontario. Arrintaasi waxa la ogaaday inaysan suuragal ahayn in la isku hanjabo oo canshuuro la isugu hanjabo, laakiin wada hadalku uu muhiim yahay. Marka dib ayaa loo dhigay, wada hadal ayaana sii socon doono. Marka suuqyada saamiyadana weli hoos u dhacaya maalintii saddexaad oo isku xigta laga dareemaya maadaama arrintan canshuuraha Trump uu ugu hanjabay wadamadii dhaqaalaha ama xiriirka dhaqaale uu kala dhaxeeyay Mareykanka. Aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. Intaan mar kale kulmi doono saaxiibkiin Cilmi Waaro idin la sida iyo nabadgelyo.